kulankani ay iskugu yimaadeen qaar ka mid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika oo cambaariyay xarigii loo geystay wariyaasha TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo kala ah wariye Cabil Daahir Salaad iyo madaxii bariga iyo bartamaha Afrika Cabdullaahi Xirsi Kulmiye oo maalintii labaad u xiran dawladda Soomaaliya saxafiyiintani oo wajigooda laga dheehanayay murugo ayaa cambaariyay dhibaatada loo geysto wariyaasha ku nool dalka Soomaaliya oo ugu dambeeyay xarigii shalay loo xiray wariyaasha kala ah Cabil Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xirsi Kulmiye ما سنتهاي مجاعي عبد الله محمد عمر بلوان وحنقول لي مجاعي كود أورك صحفيين الصومالية سجاسة ساوث أفريقيا يونكدي سينهاي كنتي تنوع علامات وريا كستو جوجا دونيدا تصحي عدالة درها كجرت الصومالية ولي بعدالة درها كلية ما هني حرية القول كي أيال واحد قد بيان دولة الصومالية واحد بدن بيسمى أنا قلنا الدولة بانو كنتها غيري جرني ما دام الدولة وأنا سلينا وحبي صحيح لكن تنوع تعدي وين صعيب كعول داير سراد يو أجاسمها بريجي برتما أفريقيا عبد الله حرسي كلمي وحن لاي هاي وإن صدق دقلوس ودية ولي بعض الصجاسنا وحنو كسمين دونا جودها الصومالية لا يرى الضوضة حقوق ضوضة أو ورياش ماذا حبنان إيو الدولة كلا نحن هذه أما محكمة المركزية مارية بلا عد كيهين وحنو بلن قاضينا إنه هل كان كمل جلدون الله يرضى سهدو الله مسجاسنا ويكحنتهاي وحن مركز تعسينا يا مامولك سرة يونيفرسال تي في ورياش كاول قال مقدشو وحن لنا هاي أنا جو إذا كمتجين كلية وحنو كم قلنا هاي بتبادلنا إنه قريب كقاضنا وحن لنا هاي أد بعد وما هسنتهين دال كينا سيو وضع يالله دوتين دولة waxaan u leenahay nama caburi karaysaan waynu sii wadaynaa xaqiiqda dhaxadnimada iyo doodaha la xiriira bulshada wax lagu tusaad bad u maasantiin waxaan cambaaraynayaa oo aan ka xumahay tacadiga ka socda magaalada Muqdisho ee loo geysanayo saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasha ka tirsanaa TV-ga Universal daadiyihii barnaamijka Doodaag Cabil Daahir Salaad iyo agaasimaha bariga ee bartamaha Afrika Cabdullaahi Xirsi Kulmiye oo aan u aragno in xaq darro lagu xiray maadaama ay ka hadlayeen dhibaatada ka jirta dalka Soomaaliya saxafigana wuxuu xaq u leeyahay in uu soo bandhigo dhibaatooyinka ka jira dalka iyo horumarada biri codkii asxaabtii walaalay iga horeeyay lagu cambaareen xarig loo geystay Cabil Daahir Salaad iyo madaxii bariga bartamaha Afrika Cabdullaahi Xirsi Kulmiye iyo aad baan ugu xunnahay hadaan nahay bahda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika waxaan aniga ku biiri lahaa hadalkooda nimankani walaalay iga horeeyay annaga waxaan aaminsanaa jirnay in saxafiyiinta ay dhibaateeyaan kooxa aan ahayn dawladda oo aan ognahay in dhamaanteen uga soo cararna dalkeena hooyo marka dhibaatooyinkaasi wax loo geysanayo saxafiyiinta aan aaminsanaa jirnayna in ay tahay urur ama shakhsiyaad dawladda aan ka tirsaneen inay dhibaateeyaan saxafiyiinta haddiiba maanta dawladda ay dadka xirayso oo aad maxaad Itoobiya wax uga sheegtay ama maxaad sax uga sheegtay ee dawladda dadku xirayso aad iyo aad baa u cambaareenayna anigoo ka mid ah ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika magaciigana ah Umar Maxamed Umar Kiyo waxaan codkayga ku biirinayaa cambaareynta ah in saxafiyiintii lagu xiray magaalada Muqdisho kuwaas oo kala ah wariye Cabil Daahir Salaad oo ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala in telefishinka Universal iyo agaasimihii bariga iyo bartamaha Afrika Cabdullaahi Xirsi waxaan leeyahay ama ugu baaqayaa in dawladda Soomaaliya in ay ka noqoto xariga isla markaana ay xorriyadooda dib u siiso isla markaana xafiiska Universal TV uu ku leeyahay in magaalada Muqdisho dib loo howlgeliyo tan waxay ka mid tahay in caqabadaha mar walba iyo soo wajaha saxafiyiinta ku sugan gudaha dalka annagana waxa dib joog naga dhiga waa taas waana ka xunnahay in dhibka lagu hayo saxafiyiinta horey waxaan ogeyn idaacada la xiray taas waxaan isleeyahay marka hore way ku saxan tahay dawladda hase ahaatee wuxuu u sii gudubtay in telefishinada iyo xarumahooda qaarkood la xiro oo ugu dambeysay University TV xaruntii ku lahay magaalada Muqdisho waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya in xorriyadeedu ay dib u soo celiso wariyaasha la xiray xafiiskana dib loo furo kan ay uga soo horjeedeen saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika xariga loo geystay wariye Cabil Daahir Salaad iyo gudoomiyihii bariga bartamaha Afrika ee TV Universal Cabdullaahi Xirsi Kulmiye ayaa wuxuu ahaa mid aad looga dareemay shucuurtooda oo aad u kacsaneed waxayna dhamaantood isku raaceen in ay yihiin mid ay ka xun yihiin taasoo ay dawladda Soomaaliya ee dhamaan dadka ay qusayso xarigaani u geystay saxafiyiintana ay ka codsadeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo daayeen saxafiyiintaasi xariga loo geystay Idris Sheekh Ahmed Guure telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika